hay'adda ilwaada oo kamid ah hay'adaha samafalka ka shaqeeya ka howlgala gudaha Somaliland fadhigeeduna uu yahay magaalada Burco ayaa kun qoys oo kamid ah qoysaska danyarta ee ku nool gudaha magaalada Burco iyo nawaaxigeeda u qaybiyay deeq udxa oo hiliba deeqdani udxada ay hay'adda ilwaada u qaybisay dadka danyarta ee ku dhaqan magaalada Burco ayaa waxay sanad kasta xilligan oo kale hay'addan ilwaada u qaybisa dadka danyarta ee ku nool magaaladani gudoomiyaha guud ee hay'adda ilwaada Sheekhadan Xasan Saciid oo horeyntiba faahfaahin ka bixiyay deeqdan udxada hilibka ayaa waxa uu yiri Ilaahay baa mahadle subhanahu wa ta'ala maanta halkan aynu joogno oo aan ku qaybinayno udxiyadii alxamdulillah loogu talagalay ciida waa arin sanad walba hadii ururka ilwaada ka qayb qaato oo bixiyo dadka jilicsan ma garanaysaa udxiyadan marka waxaan ugu talagalay maanta reeraad u fara badan oo ma garanaysaa ilaa kun ku dhowdhow insha Allah yaa ka faa'iideysan doona ilaa birina way soconaysaa iyo maantaba way soconaysaa insha Allah marka waa ilaahay mahadi weeyaan waxa weeyaan waa arin sanad kastaba udxiyadaas ma garanaysaa ururka ilwaada iyo hay'adaha kale ma garanaysaa ay wada shaqeynta leeyihiin ay ka qayb galaan marka maanta halkan loo baan ma garanaysaa ku qalay oo hilibkeedii lagu qaybinaya birina hadii ilaahay ka dhigo ari baa jiri doona marka magaalada Burco iyo tuulooyinka ku hareeraysan iyo meelaha qaxoontiga iyo intaba waan gaarsiinaynaa iyo ma garanaysaa agoomaha iyo dadka danyarta dadka waayeelka in Allah intii aanu kari karno waa la gaarsiinayaa ma garanaysaa hadii ilaahay uu ka dhigo sidaas ayaanu ma garanaysaa ugu talagalay isku soo wada duuba hay'adda khayriga ee ilwaada iyo mashaariic kala duwan oo horumarineed ka hirgelisay gudaha magaalada Burco iyo guud ahaanba gobolka Togdheer taasoo wax weyn ka taraysa baahiyaha asaasiga barwaaqo aadan Maxmed shabakada caalamiga oo News magaalada Burco.